maanta xisbiga wadani waxa uu cadeeyay oo aan dhinacaad ka saarnayn inuu dalkan doonayo inuu geliyo meel madow gudoomiyuhu u hadlay daraad miidiyuhu ka hadlay wuxuu sheegay in la kala tashanayo su'aashu waxa weeye yaa tashanaya maxaa loo kala tashanaya yaa kala tashanaya tashi waa ku yaala Soomaaliland ma tashi kaliya leedahay mise toban tashi bay leedahay waxaynu u baahannahay inuu cadeeyo oo uu sharxo yaa kala tashanaya micdaan Soomaaliland ahayn baa kala tashanaysa cid la tashanaya meel Soomaaliland ahayn dalku miyaanu tala kali wada lahayn saddex xisbi oo qaran baa jira dalka saddexda xisbi ee qaran waxay ku khasban yihiin in ay talada wada yeeshaan laba meel maray inuu erge iyo cid walba diida maaha maalin walba miidiyaha ka ilaa waa la kala tashanaya nin dhigala ayaa waxa la yiri ay cid isqabteen wuxuu waxaan garanayaa inaan ka daran waxaan ku garanayaa dadkii oo dhan bay soo wada eegaya waxaan leeyahay wadani Soomaaliland dhamma aday ku eegaysa xisbiga wadani wuxuu ku celceliyaa isdamarin baa dhacday iyo komishinka cadaaladda ku kacay doorashadii madaxtooyada ee 2019 ka qabsatay dalka waxa la yaab leh xubintii ugu jirtay xisbiga wadani komishinka haddii waxa cadaaladdaasi ay jirto xubintaas dhagax ma yahayne wakiil bay ka ahayd xisbiga maxay ugu hadli weyday haddii cadaaladda ay jirtay soo asili weyday haddii uu xisbiga wadani helayo xisbi kale oo la fikira oo soo labeeyo kala dirida komishinka ku labeeya hada kala diro anagu maanta asxaabta kaba tirsan xisbi hebel baana malihin waxaan leenahay siyaasiyiinta asxaabtu wal maskaxdooda ha toojiyeen oo meel ha iskugu geeyeen wilgaha ummadda Soomaaliland iyo masiirkeeda dawladii Siraayo 8 sanadood Siraayo mucaarad soo ah ayaa dhexdhexaadinta ay qarabadu qoladii daqbixiyaashiina dhexdhexaadiyeen 6 bilood in doorashada lagu qabsado komishinkiina sidii baa lagu bedelay maanta arinta taala maaha arin sidii oo kale u eg asxaabtii Israaciil jirto baa imkana israacday mucaaradnimada maanta ka jirta Soomaaliland waa mid u baahan in la miisaamo milgo